wuxuu aanu aabahay la yaaban buu aabahayna aabihii keenay anoo la yaaban jeelka Boorama ee buuxsamay ee bilaa maxkamadda dadku ay ku jiraan iyo stationka dadku meesha ay saxdaan ay ku kaashan stationka booliiska Boorama waxyaabaha surniyadu ay jiraan dad baa ku xiran saldhiga bilo oo aan maxkamad la geyn waxa kamid ah waxyaabo aan la soo qaadin baa jira waxa weeye caruurta dhalinyarta ee Boorama ku xiran waxay ahayd waxaan loo baahnay in la xidho maxaa kiciyay caruurta maxaa keenay waxaan maqlayaa wasiirka ku xigeenka arrimaha gudaha leh dad baa dibadda waxooga soo sheegay dad baa banka waxooga soo sheegay waar markan kuwii aabahood dilay lagu sheegayo geesiin iyagana aabihiina soo qaadina leeyahay taas meesha ma qabto inta SNM la xusayana iyo taalooyin loo dhisayana kuwii ay laayeen SNM-tu waa la xasuusan waana loo dhisay war si nabarka loo bogsiyo afka looga sheegay uurkana looga bogsiyo faraha laga qaado soo hadal qaadista wixii dhacay hadii shaqolana ay tira waan ku faanayna qolana ma soo qaadi kartaan taa waxay noqonaysaa wixiina soo maray oo cusboonaaday iyadoo dad badan ay xidhan carabka ugu dhuftay halkaana aad moodo talaabooyinkii wasiirka hadan in yar ku noqdo awood sheegasho iyo ku tagrifal awood xafiis iyo ku tacadi dan yar tabaalaysan iyo tixgelin la'aan odayaal dhaqameed oo hortaada yimid kuwan laba mid hala soo galo dawladdu waxaan ka codsanayaa waxaan farayaa iyo waxaan ku oranayaa mid oranayo waxaan ka codsanayaa inuu sharcigu shaqeeyo qofkii dambi galay maxkamadda la mariyo waajibkiisa la mariyo qof baa hadlaba lagu xidhay waxa oranayaa qof aan hadlin baa la xidhay marka hadal buu ka joogaa hadduu qofku aflagaada geystay waxba ahaan lahayd kuwan ma hadlin ba miyay joogaan la soo xidhay kuwan magaalay tacsiin ka sameeyeen waa la xidhay ama maxkamadda la geeyo hadii dambi tahay xusida waalidku ama faraha laga qaado in maxkamadda la geeyo faraha laga qaado xukun u dhaxayso maalin waxaan tagay xafiiska la yiraahdo international development ee ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda waxa jirtay waxa la soo saaray amar leeyahay muwaadiniinta Ingiriisku yaanay tagin waa dadka baasaboorka haysto dhan dadka cadoon maaha ayaa la tagay Soomaaliland waxaan weydiiyay agaasimo kamid ah waaxdaas wuxuu ii sheegay inay si gaara dhagta ugu hayaan iyo ishaba arrimaha Soomaaliland dhaqdhaqaaqa Soomaaliland ka jira cabashooyinkii hore daafaha beelahan haynay buuri imikana waxba soo kordhay ku fasiri maayo laakiin xoga badan oo hayna awgood markay ku habboonataan u sheegayna aad baan ugu xumaaday ninkaas sidoo xiga qarinay waxna inuu jiraan uu ii sheegay marka waxaan jeclahay Soomaaliland hore u socoto la ixtiraafo laakiin sida ay ku socoto su'aal baa saran calaamad su'aal والسلام عليكم